أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد maanta ina soo gaarsiiyey inaan ku tukanno halkan munaasabadda ciidul adxaa ciidul kubraa oo maanta xujaaju beytullaahi alxaraamna ay ku jiraan maalinta ugu mashaqada badan acmaasha xajka iyagoo shalay ay joogeen banka carafo xalayna mabiidkooda musdelifo uu ahaa maantana ay jamaraadkii iyo xalqigii iyo sacyi dawaaful ifaada iyo shaqo badan ay u taallo maanta ay tahay markay ugu shaqo badan tahay innaguna ay tahay maanta ciidul adxaa dadka muslimiinta ahna waxa rasuulku uu faray qudwada uu ugu ahayd maanta oo kale hilbawarad baa la yidhaha ayaamu tashriiqa iyo maantaba waa marka dadku sida ay u siman yihiin marka ay xalay baryayeen musdelifa ama shalay ay joogeen ama maanta dharka la wada qabo iyo duruufta lagu wada siman yahay mid qaniya iyo mid mas-uula iyo mid faqiira ayna kala lahayn maantoo kale waxay u baahan tahay in la gaadhsiiyo dadka qof waliba wuxuu kari karayo udxiyada la sameeyo inta badan la sadaqaysto la gaadhsiiyo dadka ilmaha laga farxiyo sidaasay munaasabadda ciidu tahay waxay leedahay 3 maalmood oo ka dambeeya kollay khudbada sheekha ku jirta ayaamu tashriiqa ah oo hilbawaradka la yidhaahdo ilaahay waxaan ka baryayaa inta bugtana inuu caafiyo intii dhibaatayna uu naxariisto inta joogtana quluubtoodana inuu isu soo dumo caafimaadna uu siiyo intaa markaan ka gudbo deegaanka aan ku noolahay iyo soomaaliyaba iyo caalam islaami guud ahaanba maanta caqabado iyo culaysyo badan way iska jiraan soomaaliya marxalado badan bay soo martay jubbalandna ay soo martay soomaaliya xaalad dib u heshiisiinah iyay ku jirtaa muddadii hadda lasoo dhaafay laga soo bilaabo burburkii dowladda carta laga soo bilaabana soomaaliya waxay ku jirtay dib u heshiisiin doorashada la qabtana waxaa inta badan u ahayd bays dib u heshiisiin iyo soomaaliya bal inay wejigaas weji ka bedelan ay gaadho taasaana inta badan lagu soo meelmarayay marxaladaha lasoo marayna kulligood waan garanaynaa deegaankan aan joogno jubbalandna waan garanaynaa waxaan horta ku baaqayaa gogol inaan u fidino dadka reer jubbaland oo aan wixii dib u heshiisiinayay ciddii cid wax ka tabanaysa aan isu keeni doono haddii ilaahay yidhaahdo iyadoo maanta ay soomaali deegaanka ugu badanoo deegaanada kale ka duwan uu yahay haddana ma laha maanta khilaafyada iyo qabaa'ilka isku dhacyada badan ee ka jira maanta soomaalida inteeda kale sidaasoo tahay haddana asal waxaa noo ah dib u heshiisiin inaan samayno caqabadaha jira ee siyaasaddu waa mid aan isleeyahay marxaladdii hadda loo baahnaa way ka tagtay dowladda wakhtigeedu dhammaaday waxaa caqabad ay la timid noqotay inay wixii la isku ogaa iyo waxaan shalay ka dagaalamaynay kulligood intii laga tago ay dib u heshiisiintii meesha ka baxdo xilligii doorashada ilaan doorashadu waa tafaahum dadku isku og yihiin oo waxay dadku isla fahmayaan in intii laga taga maanta ay noqoto nin walba inuu yidhaahdo xataa inuu garan waayo waddanka xukumo midka uu yahay oo maanta ilaa waktigan aad arkaysaan oo waktigii dowladda xukunkeedii teeramkeeda uu dhammaaday ayna jirin wax maanta laga wada hadlayo iyo wax la isku ogyahay midkoodna si indhala-aana lalaguma socon karo waddankaad maamulaysana inaad garanaysa midkuu yahay yaa asala waddanka aad xukumayso inaad garanaysa midka uu yahay baa asala golaan samaynay gogolo badan baan dhignay waan isku daynay dowladda inaan xal la gaadhno laakiin wax way ka socon weyne waxay ku riyootay oo laga hadlay doorasho qof iyo codaan gaadhaynaa doorasho qof iyo codan waxay dhaxal siisay doorasho dabran mid dadban baa laga hadlayey mid dabran oo laleeyahay hebel hebel baa madaxweynaha hebel hebel baa sidaa noqon hebel hebel baa sidaa noqonaya maanta halkaasaan maraynaa madaxweynihii hore xasan sheekh ee wakhtigiisu dhammaaday maanta uma baahna in wax laga weydo waa markhaatiga nool qofku waxa uu mimbarka masaajidka ka sheegaa way ka dulan yihiin waxa uu bannaanka ka sheego isagaa markhaati isugu filan
hadduu one day isdhegaysto wuxuu garan lahaa waxa uu ku hadlay iyo waxa uu ku jira waxa ay tahay maalin walba waxbaa laga hadlayaa waxbaa la samaynayaa soomaaliya hadday sidan kusii jirto talo badan bay gaadhaysaa waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo oon u cudur daaro dadka muqdisho ku dhiban ee la barakiciyey aan odhan karo odayaasha golaha mustaqbalkuna shaqo badan bay ka hayaan wax walbay isku dayeen tanaasul badan bay sameeyeen laakiin reer muqdisho waan idinla qaybsanaynaa dhibka aad qabtaan waan idinkula jiraa waxaadna ogaataan dowlad kasta oo timaadaay dadkaa la dulmiyey ee la barakiciyey inayna ku socon doonin qof kasta oo dhulkaas dulmiga iyo dilaalayda samaasirada hadda soo baxay waagi hore waxaa jirtay hogaamiye kooxeedye iyo dagaal oogayaal iyo hadda dhul boobayaal iyo dhul sharciyaystayaal iyo dhul dilaalayaal baa jira in laga daba tegayo oo sharcigu loo siman yahay qof walbana ha u calaamadaysnaada meesha uu deganaa dowlad kasta oo timaadaa taa way ka daba tegaysaa taasaana hadafka golaha mustaqbalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladdu ay yihiin waxaan odhan lahaa madaxweynihii hore madaxweyne xasan nin odayaa tahay taariikh baad soo martay ha ku khaatimo xumaysanin kuwa kaa xoog badan oo kaa awood badan baa sidaa ku joogi kari waayey talada dhulka iska dhig dadka isugu yeedh haddii kale maalin walba qof waliba siduu kaaga tegaya adigoo keligaa yaad ku soo hadhaysaa carruurtaadana uquba uga cabso hahda iyo habaarka iyo cuqubada dadka waalidiinta waaweyn iyo dadka dhahala iyo kuwa lugahala iyo ka soo yeedhaya waalidiinta iyo maanta kuwii ciidanka ahaa ee dagaalka shabaab iyo inay waddan difaacaan u joogay haddana reerahoodii la barakicinaya waa dhibaato xoog loo ku dhacaysa aad iyo aad baan reer muqdisho waxa ku dhacayana uga cudur daarayna waana idinla qaybsanayna soomaaliya maanta dowlad dhexe ma jirto wakhtigeedii wuu dhammaaday waxa maanta garoommada iyo xanibaadaha iyo deegaanada wax walba la siyaasadaynaya wax lagu aamini karaa ma jiro dowlad dhexe oo wax lagu aamini kara oo wax lagu hadlayn karaa maanta soomaaliya kama jirto sidaa daraaddeed waan soo saari doonaa mowqifkayaga waanan caddayn doonaa golo mustaqballa waan ku caddaynay ka jubbalandna waanu ku caddaynaynaa soomaaliya waxay u baahan tahay dib taladeeda in gacanta dadka lagu soo celiyo dowladaha kale ee ku dhex jira dowlad waliba ha ogaato soomaaliya inaan si walba loola dhaqmi karayn saaxiibada soomaaliya waa inay qadariyaan dadka soomaaliyeed waxay yihiin iyo waxay isu yihiin laakiin aynan noqonin masaalix markaa cid ay leedahay in la yidhaha ciddaasaa noo fulinayso saasaa yeeli karaysa ha la iscafiyo tasaamux ha la badiyo dadku duruufta lagu jiro waan garanaynaa xaaladaha adduunka oo dhan baa wax badani ka jiraan marka aad iyo aad baad u mahadsantihin salaamu calaykum waraxmatullahi